28 bishii May ee sanada 2020 ayaa xasuuq wadareed loogu geystay 8 dhalinyaro dhaqaatiir ah deegaanka Gololey oo kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe iyadoona ilaa iyo hadda si rasmi ah loo ogeyn cidii ka dambeysay xasuuqooda. waalidiintii dhalay 8daasi dhalinyaro ee xasuuqan baan loo geystay ayaa waxaa maanta la siiyay deeq lacageed oo dhan $250 Mareykanka ah isla markaana ay iska soo ururiyeen deeqdan lacagta dhalinyaro iyaga iskood isku soo xilqaamay isla markaana waalidiinta 8daasi dhaqaatiir la qaybsaday tiraayada maadaama dhaqaatiirtaasi ay ka wada tageen xaasas iyo caruur agoona iyadoona mid ka mid ah dhaqaatiirtaasina uu yahay midka ugu danta yar kana tagay dhowr caruur ah ka oo dhalinyaradan jooga gudaha dalka iyo dibadiisaba ku wareejiyay boos ay iyaga u iibiyeen isla markaana loogu dhisay guri qurux badan waxaana furaha guriga maanta lagu wareejiyay aabaxuuti oo ahaa aabaha dhalay mid ka mid ah dhaqaatiirtaasi isla markaana wakiilka ka ah caruurtan agoonta ah haddaba qaar ka mid ah odayaashii ka soo qayb galay kulankan tiiraayada loogu qaybsanayay waalidiintii dhalay dhaqaatiirtii sida arxandarrada loogu xasuuqay iyagoo ka shaqeynayay goob MCH oo ku taala deegaanka Gololey kana mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ugu horreyn u mahadceliyeen dhalinyaradii iyaga iskood isku soo xilqaamay oo deeqdan u soo dhiibay waalidiinta dhaqaatiirtaasi isla markaana kala jooga gudaha dalka iyo dibadiisa iyagoona dhanka kale sheegay in ilaa iyo hadda aysan dawladda federaalka Soomaaliya aysan ka helin wax jawaab ah oo ku aadan dhacdadaasi maadaama ay dawladda federaalka ay sheegtay inay wado baaritaano ku aadan dhacdadaasi. waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka aan nagala soo qayb gasheen xafladan ballaaran ee dadka walaalaha masaakiinta wax lagu guddoonsiinayo. annagu waxa aan wareejinayno ma aha lacag tacsiye ama xoolo lagu qalayo ma aha waa lacag taakuleen ah oo dad walaalo oo qaraabo ah iyo dad muxsiniin ay soo dhiibteen oo adduunyada dacaladeeda kala jooga sida Canada, America, South Africa, Europe, Asia meelo badan kala joogo qaasatan haddana Soomaaliya dadka joogo walaalo badan oo muxsiniin oo qayb weyn ka qaatay dhammaan waa ugu mahadcelinaynaa. 8 wiil oo wax kalada aqoon-yahano ah oo ka maqan ilaa haddana adna ka ogeyn xanuun ay leedahay annagu ilaahay gadaashooda uma fidneeyo dawladda waxaan ka codsanaynaa iyada maanta wadanka xukunta oo sheeganaysa inay adduunyadu waxa la yiri inay kugu amaahto lagu ilaabsaneen ogow waa amaah dad qabo waana la heli doonaa insha Allah dawladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkayna meel noo saarto. horta waxa waaye wax alla waxaan dheelahay rag iga hore u yiri waxaan ka xunnahay nimanka dalka iyo dadka baan ficlahay dhaqaatiirta ahay si wax lagu soo baray sida hadda maqlayseen xamaalinimo gobolkoor agoon lagu soo baray dadka naga hasuuqay ayaan aad ugu xunnahay saasan biriga isugu nimadnay waxaan rabnaa dawladda dhexe iyo Hirshabeelle inay meel saaraan inay naqanciyaan aan uga fadhinaa namana anfacdo namana qabato falki ka dhacay meeshaas waa lagu daba jaraa nama qabato qanacna kumani wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dad inta waa la arki jiray 8 qof ka badan meel ku dhimatay waa la arkay laakiin 8 qof oo dhaqaatiir hal meel lagu dilay Soomaaliya lagu markin adduunyada lagu markin anaga u dil wadareed xasuuq aluu tilmaami karaa marka wax dhacay waaye waxay dhacay in Ilaahay agtiisa ka yimideen laakiin sabab ay leeyihiin dadkana dilay adduunyada dadka wariiri bacbad dilin bahal ma dilin daacuun ma dilin dad dilay dadka dilina kullee uu dawladda mas'uulka adduunyada wadanka idaaka mas'uul iyada qabta dadka idaa xukunto idaa u dhaaratay idaa dawladda wadanka maalibnimo dawlad noqdo laakiin dadkii dawladda ahay oo hadda anaga aan joogno 27 bishii shanaad maanta ay joogto 11 bishii 7 ilaa hadda ana cadaalad weyn xoogaa tirsanaa. intaasi kadibna qaar ka mid ah waalidiintii dhalay 8daasi dhaqaatiir iyagoo aan waxba galabsan xasuuqa ba'an loo geystay ayaa ka mahadceliyay deeqdan lacagta ah oo ay iska soo ururiyeen dad ka damqaday caruurta agoonta iyo xaasaskan ay ka wada baxeen Allah u naxariistay dhaqaatiirtan
iyagoona ugu dambeyn dowladda federaalka Soomaaliya ka dalbaday inay cadaalad u helaan dhaqaatiirtaasi oo sida ay sheegeen waalidiintooda daruufo adag ay wax ku barteen xitaa qaarkood iyagoo agoon ah wax la soo baray iyagoona weli sheegay waalidiintan inaysan xoogooda dhadhamina si xun loo xasuuqay dhiibitaanka musaacadada gudaha ka shaqeeyay balcad iyo dadkii dibadda hantida ka soo dhiibay iyo gudahaba waxay kiciyeen dareenkayna sababtoo Soomaalida waxay dhahaan xaqabta qalbigay u roon tahay macnaha waxayna tuseen in qaraabo ay yihiin xanuun oo soo taabtay oo ay ka soo qayb qaateen sidaasna ay qalb dareenkayna u kicisay oo aan dareennay dhibaatooyinka nagu dhacaya in ay jiraan dad nala qaybsahayo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr ha ka siiyo ilaahay ajarkooda ma dayaco miisaanka aakhira allah ugu kabo dadaalkana meeshaas ha ka sii wadaano bismillaahir rahmaanir rahiim muslimiinta walaalaheena soo saaciday caruurahaas la laayay abshira cabdulagani anigoo ah wiil walaalkay dhalay aabihiisna ay dileen qabaa'il hogaamiye kooxeedyada ay dileen in agoontinimo ku korinay agoontinimo ku waxbarnay yaa markuu waxbarashadii dhammaystay 2019 bishii lixaad oo qalin jabintiisii qaatay waa sanadkii ugu horeeyay oo la dhidhimin rabay xoogiis cadow baa u baxaya cadowgaas ilaahay naga qabtaan leenahay intina soo saacidana ilaahay khayr ha siiyo midalkooda khayr qabo dawladana waxaan ka codsaynaa inay raadiyaan caruurahaas jaamiciyiinta ee sida ilaahay ogyahay wax lagu soo baray xaqooda inaysan ku seexanin oo dadka dhahaya dawladda ma dilin ay iska daayaan oo ugu weyn yahay taliyaha ciidanka xooga dalka ha ka baxo baddaas ee ha raadiyo wixii dilay dadkaas علي الحوتي قالوا عليا سنتين وحاجرا 6 سنة انت وحنو قبتي اما دبد هاجرت مدلك هاجوكت كل على كديو كايو كاي الهلول مين على كديو هي قولوا لي اس موسى لي قال قولوا لي اس واحد بي يقا مغن واجيو جيران انت نو كالميس اما دبد هاجرت أما ذلك هجوك معك عسينا إلهي قاعد كل كذب وإلهي يقول له وحي قبطان أين ويني وحي عنا أي سويني خلاص نقصدوها